السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My fellows, my friends, my families. dadkayga igu xiran qalbi ta qalbi salaan ah ayaan idinku salaamayaa. Salaan qalbi to qalbi ah. Salaan ka bacdi waxaan rabaa inaan maanta waxaa weeye xamra cunto xayeysiisay. maanta maxaa wadaa weeye maanta waxaan wadaa gabar walaashay ah maasha allah. waxaan leeyahay oo waxay tiri sonkor ayaan qabaa, ilaahow ku caafi rabbiyow raxmaanow. ilaahay waxaan kaaga baryayaa caafimaad sareex ah inuu ilaahay ku siiyo. walaashay qaali ah, micno ma laha inaan magaca sheego, ma loo baahnaa. runtii walaashay waxaa weeye dhib ma laha. waxaa weeye alxamdulilah calaa kulli xaal, wixii ilaahay keeno waa lagu saburaa. waxaa weeye runtii waxaa la fiirinayaa samirkaaga. qofka bini-aadanka ah waxaa weeye ilaahay wuu imtixaamaa. adduunkan dadka bini-aadanka waxay u joogaan imtixaam. haddii maxaan ku irahdaa ilaahay qofba waxbuu ku imtixaamaaye uu xanuun ilaahay kugu imtixaamo, u samir. asamru jamiil. saburku waa fiican yahay, waa wax weyn sabarka. runtii ilaahayna ajar buu dadka ugu bedelaa iyo xasanaad hadduu qofka ku samro wuxuu ilaahay u keeno. waxay ka mid tahay iimaanka qayb ka mid ah weeye. oo qofka islaamka ah waa inuu iimaan diimeed leeyahay. iimaanka diimeed qofka lehna wixii ilaahay u keeno qadarta wuu ku samraa. marka waxay isoo weydiisay gabadhan walaashay ah, waxay tiri sonkorta maxaa dejiya? qorfaha ayaan aqaanaabay tiri, dhir kale ma jirtaa? waxaan leeyahay haa walaal way jirtaa, dadka kalena waa u faa-iideynayaa. marka waxaa jira haylka. maanta waxaa weeye waxyaabaha bohoraadka ay dhahaan eeshiyaanka waxaan rabaa inaan kasoo qaato haylka. bahalka haylka la yiraahdo soomaalida waa jeceshahay, aad baanan u isticmaalnaa. runtii sida eeshiyaanka oo kale aan u isticmaalnaa haddaanu soomaalinahay. haylka wuxuu u fiican yahay sonkorta. sonkorta wuu dejiyaa haylku, oo xataa even wuxuu u fiican yahay dhiigkarka haylku. haylka haddii aad qaadato maalin walba ood cabto shaah hayl leh 2 times a day haddaa cabtid, subixii oo dee caado ay noo tahay, galabkiina caado ay noo tahay. soomaali haddaanu nahay shaaha waa cabnaa. haddii aad hayl ku darsato shaaha oo aad 2 jeer cabtid, sonkortana wuu dejinayaa, dhiigkarkana wuu dejiyaa, oo low buu ka dhigaa dhiigkarka. oo maxaan ku irahdaa normal person oo kale ayuu ka dhigaa. weliba haddii qofka uu qaato 10 isbuuc ama 12 isbuuc sida la sheego. haddii aad qaadatid ood cabtid 2 jeer continue oo cabtid maalin walba, dhiigaagii dhiigkarka ahaa ee kacsanaa wuxuu noqonayaa sida qof normal ah oo kale, like qofka healthiga ah oo kale ayaad noqonaysaa. dhiigaagii wuxuu noqonayaa sidii la rabay. waxaa kale uu haylka u fiican yahay dadka neefta qaba ayuu u fiican yahay. oo neef qabatin kale jaska uu xanuuno ayuu u fiican yahay. wuxuu furaa sanbabada. haylku aad buu ugu fiican yahay. waa health geedkan haylka la yiraahdo. runtii ciyaar ha moodina, ha dhayalsanina.
waxaa kaloo u fiican yahay kansarka jirka gala ayuu u fiican yahay. waxa uu kala dagaalamaa kansarka jirka runtii, oo wuxuu u noqdaa protecti, wuu kala dagaalamaa jirka kansarka. waxaa kaloo uu fiican yahay haylku caloosha, qofka bini-aadanka calooshiisa ayuu u fiican yahay. digestion weeye, bakteeriyada ayuu kala dagaalamaa caloosha oo ka dilaa. waxaa kaloo u fiican yahay haylku ilkaha bakteeriyada gasha ayuu u fiican yahay. wuu kala dagaalamaa ilkaha bakteeriyada, wuu ka difaacaa. waa sida like maxaa la dhahaa dhagayaraha oo kale, qalin furka xamar la oran jiray ayuu ilkaha u fiican yahay. oo waad aragteen dhagayaraha xataa waxaa laga dhigaa daawooyinka cadayga ugu qaalisan ayaa laga soo saaraa dhagayaraha. markuu iligku xanuunayo dhagayaraha waata la gasho. marka haylka waa very important. dadka hunuuda ah, hindida ah iyo dadka eeshiyaanka ah runtii bahalkan haylka la yiraahdo aad bay u isticmaalaan, like soomaalida oo kale. laakiin waaba naga badsadaanba iyaga. markay bariis karinayaan way ku daraan, markay maraq karsanayaan way ku daraan, markay hilib karinayaanay ku daraan, shaahay ku darsadaan. meel walbuu ku jiraa hayl iyo dhagayara iyo xawaar, meel walbuu ku jiraa. waxaan ay bohoraadka dhahaan waxaa weeye ayagoo mixid ah ayay oo tiro badan oo kala duwan ayay isticmaalaan. cuntadoodana lagama waayo. marka haylka ayagu u baxaa, hindidu u baxaa, wadanka hindiya la raahdo ka baxaa. oo runtii maxaan ku irahdaa wadan kale oo waxaa jira Africa uu ka baxo asagana Zanzibar la yiraahdo oo laga soo dhoofin jiray haylka. oo dabcan dadka qaar ba ay aaminsan yihiin in haylka iyo dhagayaraha iyo qorofalkaba intaba uu Africa ka yimi asalki, waliba wadankaas Zanzibar la dhaho uu ka yimi, uu ka tegay oo uu u gudbay dhulkaas kale oo maxaan ku irahdaa India iyo Asia. marka haylka waa very important. waxaan oran lahaaba haddii la helayo in la beero. gabar aanu saaxiibo nahay oo eeshiyaan ah waxay ii sheegtay mirihiisa in la beeri karo, oo laakiin ay tahay lucky qofkii dee ilaahay usoo saaro uu usoo baxaayo. dee wax walbana kolley un ilaahay baa soo saare cid kaloo soo saarta ma jirta. mirtaa yarta ah maxaan ku irahdaa miraha yarka haddaad dhulka ku riddo cidda dilaacinayso oo geedka dhan ka dhigayso waa ilaahay. oo waxaan ilaahay uusan isagu aqbalin ma aqbalmaan oo ma suurto galaan. ilaahay ba hadduu suurto geliyo inuu soo baxo geed noqdo wuu noqonaysaa mirahaas yaryarka ah. bal hala try gareeyo soomaaliyey, aan wax beerano. waxyaabahan oo dhan waa healthy, waa wax jirku u baahan yahay. waa maxaan ku irahdaa waxaa u baahan noloshaada, waxaa u baahan caafimaadka boodigaaga iyo naftaada. marka waxaa fiican inaanu wax beerano. qofkii helaya haylkan isagoo Asia kasoo iibsan karaa, isagoo ah abuurkii geedkii oo dee maybe yeer jira, laba sano jira, 3 sano jira soo gadan kartaa ood ku beeran kartaa. sida carabta oo kale waxaan arkay wadamada carabta, wadamo badan oo carabta on tegay haylka way beertaan meelaha qaar, inkastousan hawadooda ku fiicnayn laakiin waana usoo baxaan oo waad arkaysaa dad guranaya. special wadankan Cumaan waa wadan runtii togag badan leh, ilo badan leh oo maxaan ku irahdaa
biyo badan leh way ka soo baxaan haylkuu ka soo baxaa oo maxaan ku irahdaa xataa dad iibsadaa jira oo dad waxaa jira Asian ahoo shaqaale ahaan ay usoo qaataan iyo mirihii ay soo iibsadaan oo runtii qumbayaalay xataa beereen dhulkooda wax badan bay ka beereen geedad badan oo geedkan hadda beachka la dhaho qooq bay dhahaan way ku beereen wuu ka baxaa si fiican uga baxaa maasha allah ayagaa ka dhul fiican imaaraadka iyo sacuudiga iyo cumaan ayaa ka dhul fiican beero badan ayaa ka baxa qumbahii baa ka baxa muuskii baa ka baxa runtii waa nimco dhul nimco ah weeye wax badanna ayaana ka baxa isagoo weliba buuraley ah dhulkaasu marka dhulkeena what about dhulkeena wow dhulkeena ayaa ka fiican waxaas oo dhul oo dhan dhulkayagaa ka fiican hawadayada hawada Soomaaliya dhulka Soomaaliyeed oo dhan way kala duwan tahay meel kulul baan leenahay meel middle ah baan leenahay dhul qabow baan leenahay xilliyada qaar marka waxaanu haysanaa fursado badan oo wax badan ay noogu soo bixi karaan marka waxaa fiican inaanu wax beerano beeraley noqono dhulka tabcano gaajada iyo faqriga aanu tuurno waxa Soomaali isku diray waa faqriye in aanu tuurno way gorofka caydha gorofka faqriga waa inaanu tuurno marka waxa weeye dadkayga igu xiran waan salaamayaa waxaan idin leeyahay share comment subscribe thumb up my people all soo dhawaada all Somali people is my people bye